kooxda Gunners ayaa u duushay caasimada dalka Spain ee Madrid si ay Atletico Madrid kulanka lugta labaad ee semifinalaha tartanka Europa League ula soo ciyaarto. labadani kooxood ayaa kulankii lugtii hore waxa ay ku heshiiyeen barbara gool iyo gool. kulankii xalay si wanaagsan ayuu ku bilowday. Laurent Koscielny ee daqiiqadii 12aad ciyaarta laga saaray kadib markii uu dhaawac xoogan soo gaaray xidigan. qaybtii hore ee ciyaarta labada dhinac wax gool ah iskama aysan dhalin. koox kastana waxa ay si wanaagsan u ilaashatay shabaqeeda. balse markii dib la isugu soo noqday Diego Costa ayaa gaaray shabaqa uu ilaaliyaha ka yahay Peter Cech kaasoo si wanaagsan u dabamariyay gool. afar gool ayuu tira ahaan ka dhaliyay 7 jeer uu ka hor yimid Gunners. Costa dhammaan tartamada oo ay ku jiraan labadii kulan ee u dambeeyay uu shabaqa soo gaaray. wax walba oo ay Gunners samayso waxa ay awoodi kari weysay inay goolka iska soo gudo. ugu dambeynna ciyaarta ayaa ku soo idlaatay gool iyo waxba oo ay ka dhigan tahay in celcelis ahaan 2 gool iyo gool ay Atletico Madrid finalaha tartankan ugu soo gudubtay. waxaad ay iska xaadirisay kama dambeysay tartankan Atletico sidoo kalena waxa sidaa hore u sameeyay Sevilla.